xubno ka tirsan qurba joogta iyo waliba culimaadiinka deegaanka Xudun ayaa maanta kormeer ku tagay deegaanka Xudun halkaasi oo ay ku taalo xero dad barakacayaal ah ay ku nool yihiin waxaana halkaasi ay ugu howlgaleen xaaladda dadkaasi oo iyadu ahayd xaalad aad u ildaran oo ay ka muuqato diif iyo dhibaato baasan oo ka soo wajahday muddadii ay dadkani ka soo barakaceen meelihii ay kala deganayeen waxaana halkaasi culimadu iyo waliba qurba joogtu ay ugu ballan qaadeen dadkii halkaasi ugu tageen inay intii awoodooda wax la qaban doonaan dhanka kale culimaadiinka iyo waliba qurba joogta ayaa waxay codsi ballaaran u soo jeediyeen dhammaan hay'adaha ururada maxalliga ee ka howlgala gargaarka iyo waliba kuwa ku shaqada leh in ay gacan siiyaan dadka baahiyaha bini'aadanimo ay haysato inay si degdeg ah u soo gaaraan uguna soo gurmadaan iyagoo soo jeediyey inay halkan ay tahay meel amni ah wax dhibaato aanay ay ka taagnayn halkan degmada Xudun dadkii barakacayaasha ahaa walaalaheenii koonfurta ka yimi ee maciinka ina soo biday iyo dadkii xooluhu ka baxeen inaynu tusno walaalaheenna Soomaaliyeed iyo kuwa caalamkaba maadaama ay dadkeenni noqdeen ay ku habsatay abaar ba'an oo xoolihii ka baxeen maxaad u taqaanaan kac dareeri dadkii abaaruhu xooluhu ka baxeen iyo walaalaheenii maciinkayna soo biday koonfur inana waynu isu gargaaraynaa walaalaheenna qurba joogtana waxaynu u bandhigaynaa sawirkan aad ku sugan tihiin iyo xaaladdan adag ee idin haysata ilaahayna wuu inoo gargaarayaa raxmadiisana wuu inoo furayaa iyo dadkii xoolaha dhaqan jiray iyo dadkii qaxootiga meesha iyo dadkii xoolaha dhaqan jiray oo xoolihii ka xumaadeen xaaladda iyadu waa sida haddana dawladda iyada barakaysan ee hay'adda ah jawaanagaas oo bad joogna caalamka waxaanu ka codsanaynaa wixii ilaahay inooga qoray oo na gaari kara inaynu ka dadkii xoolo dhaqatada ah baanu ka mid nahay abaaruhu xoolo dhaqatada marna waa jiilaal marna waqtiyana waa jiilaal waqtiyadii jilaalka nagu noqon jiray iyo waqtigii abaarta nagu noqon jiray labadii waxay nagu noqdeen jilaal bay nagu noqdeen dabadeedna markii jilaal labada jibaari xoolii ku dhacay xoolii way naga xumaadeen hadday gaadiid ahaayeen hadday geel ahaayeen hadday adhahay mid walba way naga xumaadeen dabadeedna waxaanu isdhiidhul walaalihiin joogaan oo xoolo ku biyo ka heshaan oo alla idinku tabaruco walaalaya waana ku aadee halkeegaasaan iska jiray inaad nagu quudiya laakiin waxa aanu leenahay oo culus ma cunno wixii ilaahay hadda nagu quudiyaan iska cunno waxaasaan isku noolay dad badan oo nala mid mana waa jiraan ama qaxnala ahaa ama aanu meesha ugu nimid oo xoolihii ka jabeen dee dhulkeega buulan xunxun iyo marroodoo dadku carariyo meelahayagaasaan iska joognay saddexda qaxoontiyan markii hore ba idin sheegay midna xooluhu ka jabeen labana qaxoontiga magaalooyin ka soo qaxay weey waxaayada iyo wax dawladda oo nagu tiirsanaana ma jirto ilaahay weyn baan nagu tiirsanaa iyo dadka uun meesha isugu yimid maantana wixii meesha jooga anigu ma tira koobi karo marka waxa weeye dadkaasi saas ku nool yahay biyo la'aan inta badanna biyo la'aantaaba ugu daran hooy la'aanta ugu daran biyo la'aanta ugu daran daawo la'aanta ugu daran oo ka sugan dadkii gobolladii dagaaladii iyo abaartii iyo dadkii ka soo barakay haddeerna ku sugan magaalada Xudun tuulada hay'adda waxaan ka codsanaynaa intii macnaha walaalaha Soomaalida meel birhood isku wada mid weey tani meel birhood macnaha caadi isku wada mid weey intii macnaha wala hadlaayo wala inay tani tara korto macnaha aan ka hagaajiyo degmada Xudun anagu waxaan nahay dadka qaxoontiga soo qaxay baan nahay hadaan soo qaxanayna waxaan soo galnay degmada Xudun wax ka horeeya maanta idinka cid ka horeysana ma aanan arag waxyaabaha hadii lahayd lagu ma aanan arag wax tar kale ma aanan arag waxaan ku noolahay degmada Xudun caawinta dadweynaha darajadeeda ahaa saddex qayboodka ahaa ee abaaraha iyo qaxootiyada iyo danyaraha ceedhaha ayaa halkaas ugu yimid anigu waxaan ahay 70 jir baan ahay xoolaan lahaan jiray xoolihii abaarii bay raaceen geel iyo gaadiid iyo ari mid kastaba nin indhala baanu hadda gacanta leeyahay oo kaasaa gacanta hayo waxaan ka codsanaynaa hay'adaha adduunka wixii muslimiinta danyaraha inay dib u eegto
adduunweynaha qurbajoogaha in la gaadhsiiyo wararka degmada xudun dadka ku nool ee qaxootiyada ah ee qaybaha isugu jira faraha badan leh runtii waxaan naxdin leh dhinacna farxad kale waxaan naxdin noo leh magaalada dadka kan intan leeg ee qaxootiga ah ee dhulka kala duwan isaga yimi qaar ka yimi koonfurta Soomaaliya khaasatan Bay iyo Bakool ee dadkii dhulka joogay u soo qaxeen miciinka soo bideen iyaguna hadda waxba dhaamin oo qaxooti la ah aan cid ku ogi jirin meel kale iska badaayay xitaa yani gobolka soo laga mooga laascaanoodana kan laga mooga markaan noo daaragna argagax bay nagu noqotay waxay nagu noqotay dadkani maxay ahaayeen waxaan xusuusanay raggii waqtigaa joogay daba dheer iyo sidii arrimuhu ahaan jireen insha Allah ta'ala horta Ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala waxa runtii sida uu sheegay walaalkay naxdin badan leh markaan anagu soconaynay wararku waana soo gaarayeen bariyaha kan xudun culayska qaxootigu uu ku hayo iyo dhibaatada ka jirtay dadka barakacayaasha ee isaga yimi meelaha faraha badan iyagoo ay sheegeen laakiin waxaad moodaa runtii inay gaabnayd aad iyo aadna u hooseysay malaa dadka isu xilqaamay inay adduunka gaadhsiiyaan waxaa nasiib darro runtii dhibaatada ku hayso laakiin marka aad weydo cid uun miciin oo markaa waxa weeyaan ugu yaraan baad tiraahdaa hebel waa xanuunsan yahay runtii isma lahayn ma la filayn laysa alkhabaru kalmucaayana walaa bimuraa'in kaman samic baa la yidhahdaa yacni warka iyo waxa lagu sheegay iyo waxaad aragtaa isku mid maaha cabdiqani xasan faarax cabdiqani gadari